سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا ليال أياد وما تسنتين تاوشة فيديوغن فضلا هذا القناة كان كل سبتهاي سبسكرايب صار لو ذاك أصحاب هذا فرينت هذا هوسي نوغريب ما أنت وحان ربائنا وحيرك إلى هذا كورقبيدا مiraha aad maskaxdaada ku beerayso inkastoo jirka bini'aadamka oo dhami uu u baahan yahay nafaqo oxygen biyo haddana maskaxdeenu waxay u baahan tahay quudin intaa dheer sida uu jirkeenu ugu baahan yahay cunno isu dheelitiran hawo wanaagsan biyo nadiif ah maskaxdeenuna waxay u baahan tahay hadallo wanaagsan xuska alle hadallo dhiirigelin ah maskaxdeenu waa sida warshad ama beer taas oo wax soo saarkeedu uu ku xiran yahay cidii wax ku abuurta waxa lagu abuurayo bay'ada iyo mujtamaca kugu hareeraysan haddii uusan qofku u fiirsanin waxa uu maskaxdiisa quudinayo waxaa laga yaabaa in noloshiisa uu ku dhammaysto guuldarro fulaynimo iyo mid aanan ka faa'iidaysan nimcooyinka allah subxaanahu wa tacaala uu siiyey haddaba sidee ku ogaan kartaa in maskaxdaada aad ku beeraysid miro wanaagsan kuwaasoo guul kuu keeni kara ama miro xun kuwaasoo guuldarro kuu keeni kara waxaad ku ogaan kartaa dhowr waxyaabood midda koowaad waxaad qiimaysaa dadka kaa agdhow ingiliishku waxay dhahaan the power of influence ama the power of peer pressure ha dhayalsanin hana yaraysanin dadka xeendaabkaaga ku jira dadka kugu wareegsan qof walba oo maanta nagu hareeraysan ha noqdo waalid walaal saaxiib xaas daris amaba ha noqdaan buugaagta aan akhrino afkaartana loo soo gudbiyo aflaamta aan daawanno waxay intaas awood qaas ah u leeyihiin inay habdhaqankeena wax ka beddelaan taasoo lafdhabar u noqonaysa inaan noqono dad guulaystay oo heer gaaray ama dad guul daraystay oo nolosha iyo aakhiraba meel xun ku dhammaysta tusaale haddii aad mar walbaba ku dhex jirtid dad hoos kuu dhigaya ku niyad jabinaya kaaga sheekeynaya inaadan heer gaari karaynin ogow dadkaas waxay maskaxdaada ku beerayaan miro aad u xun ma laga yaabaa beer lagu abuuray coos iyo tiitiin inuu ka soo baxo cinab iyo tufaax dabcan jawaabtu waa maya haddii ay saaxiibadaa yihiin kuwa aan nolosha guulka gaarin kuwa bilaa farxad ah kuwa aanan qaarka u degdegin ogow maskaxdaadu waxay ku beerayaan tiitiin waxaad bilaabaysaa inaad aaminto hadalladooda inaad isku aragto mid guul daraystay isagoo aanan waxba isku dayin ogow qofka faqiirka ah ee laguu sheego ma ahan kan aan hanti haysanin kan guryaha quruxda badan aanan lahayn kan aanan gaari ku soconin balse waa kan maskaxdiisa cooska lagu abuuray waa kan nimcooyinka allah siiyey aanan garowsan waa kan marka aad aragto aad ka dareemayso inuu niyad jabsan yahay inuu murugaysan yahay inuusan isku kalsooneen haddaba ma doonaysaa inaad noqoto qof isku kalsoon qof farxad badan qof diyaar u ah inuu guulaysto ka saar xeendaabkaaga dadka kugu wareegsan ka saar kuwa hoos kuu dhigaya ku niyad jabinaya kaaga sheekeynaya inaadan waxba noqon karin oo xeendaabkaaga kusoo biiri dadka guulaystay dadka khayrka u degdegaya dadka mar walbaba kula jecel inaad heer gaarto soomaalidu waxay tidhaahdaa bir ayaa bir lagu jabshaa ma rabtaa inaad guulaysato la saaxiib dadka guulaystay midda labaad oo aad ku ogaan karto miraha aad maskaxdaada ku beerayso ayaa waxa ay tahay inaad ka warqabto erayada afkaaga ka soo baxayo eray walba oo maanta afkaaga ka soo baxo ha noqdo eray maskaxdaada rajo geliya eray allah subxaanahu wa tacaala kuu dhaweynaya eray maskaxdaada u sawiri kara inaad ka awood badan tahay dhib walba oo kusoo waajaha dadka beeralayda ah waxay mar walbaba ku dadaalaan inay beertooda ka guraan geedaha aan wax nacfiya u lahayn iyo cooska dhowr sano ka hor anigoo ah arday dhigta dugsiga hoose ayaa waxaa inoo idlaaday sanad dugsiyeedkii waxaan galnay fasax dheer waxaan waalidiinteeda ka codsaday inaan fasaxayga la soo qaato awowgay guriga awowgay waxaa ku taalay beer yar
beerta waxaa ka baxayay ubaxyo aad u caraf badan midabo badan leh indhahaaga soo jiidanaya sidoo kale beerta waxaa ka baxayay coos yariis ah cooskaasoo mar walbaba ciriiri ku gelinayay beerta ubaxyada ku gelinayay ciriiri wuxuu ku gelinayay ubaxyada nafaqada la siiyo biyaha la siiyo iyo qoraxda ay iftiinka ka helaan waxaan arki jiray awowgay oo mar walbaba waraabinayo ubaxyada kaliya ah waxaana lagu jiray waqti jilaal ah dhowr bari kadib waxaan arkay cooskii oo iska go'go'ay midabkiisii dhammaaday isagoo dhan milmay ubaxyadii sidoodii ayay u qurux badnaayeen inkastoo jilaal lagu jiray haddana midabadoodii caraftoodii waxba iskama aysan bedelin si kastoo loolan adag ay kala dhexeeyay cooska haddana soo jiidashadoodii waxba iskama aysan bedelin walaalayaal maskaxdeennuna waa sidaas oo kale haddii aad ku waraabiso erayo ku farxad gelinaya erayo ku rajo gelinaya erayo allah ku dhaweynaya waxaad ahaanaysaa qof isku kalsoon iyadoo ay ku soo gaareen dhibaatooyin badan iyadoo dhinac walbaba midig bidix hore iyo gadaalba ay kaa haystaan dhibaatooyin ayaad haddana waxaad ahaanaysaa qof isku kalsoon aaminsan in ilaahay wax ka fiican ugu bedeli doono Mark Manson waxa uu dhahay inagu ma kontarooli karno dhibaatooyinkana soo gaara waxbarashada aan ku guuldaraysanayno qofka inta aan ku kalsoonaano nolosheena ka baxaya businesska nagala burinaayo businesska aan ku feelgareysmayno shaqada nagala burinaayo waxaasoo dhan ma ahan wax inagu kontaroolkeeda leenahay sidoo kale doorashadeeda ma lihin laakiin inagu waxaa kontaroolkeeda leenahay sida aan uga falcelino sida aan ula tacaalno sida aan uga jawaab celino haddaba dhib walba oo ku soo waajaha yuusan kaala tegin kalsoonidaada yuusan kaala tegin farxadaada balse murugta uu kuu keeno qashinka isaga siirid Soomaalidu waxay tiraahdaa murugadu iyadu kuma soo doonatee adiga ayaa raadsada farxadana iyadu kuma diidanee adiga ayaadan rabin walaalayaal aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada fiidiyogan fadlan hadduu ku qanciyay la wadaag asxaabtaada mahadsanidin